قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء فلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالليل تسكنون فيه أفلا تبصرون labadaas aayadood waxay ku kala jiraan labadaba waxay ku jiraan alqasas waa laba aayadood isku xigto waxaa soo horeyso waa la isku qaldaa inta badan aayadahaas waxaa soo horeyso qul araytum in jacala allahu calaykum alleyla waxaana ku xigto qul araytum in jacala allahu calaykum annahaara marka waxaad ku aqoonsan kartaa habeen iyo maalin yaa soo horeeyo habeen iyo maalin waxaa soo horeeyo sideeda bannaanba habeenaa soo horeeyo mar kastaba waxaa soo horeeyo habeen waayo ramadaanka oo kale maalinta ugu dambaysa shacbaan haddii bishii la arko bishii mar inta la arko la yidhaha caawa ramadaan waayo hala ogaado haddii la yidhaha wax kasta oo ramadaan haddii aad samayso laguu qori lahay ajirkooda waa laguu qoraa jaawaaba ku jirtaaba ramadaan hadda waagana ma soomin ogow adoon waaga soomin bishii la arkay maqribkii la dukaday waxaa la yidhi ramadaan waayo cawada koow hala ogaado muga xumaan walba oo ramadaan aad samayso oo lagu lama jimbaari lahay iyo wanaag kasta oo ramadaan aad samayso lagu lama jimbaari lahay intaba waxay ka dhasheen arkitaanka bishaas habeenkii muga soo hormara muu jeedaa si kale haddii loo yidhaahdo saacadaha caadiga ah am iyo bm am waxay isku bedeshaa habeenkii 6 saac habeenimo markii la gaaro waxaa isbedelaya am ilaa maalintii 6 saac laga gaarayo am ha socdo maalinta markii la gaaro waxaa haddana bilaabanaysa haddana bm haddana muga waxaa soo horeeya habeenkii marka ha isku qaldin haddaad isku qalado damo habeen iyo maalin yaa soo horeeya habeenaa soo horeeya khalaas saas kuwada insha allahu marka